qoloftiisa unba adduunyada taalla mooye muuminka qalbigiisu jannadu yaallaa sidii saxaabigii abu rayxaana radiyallahu canhu ghaswad buu ka soo noqday zamanka nabigeena calayhi salaatu wasalaam ninku markuu diinta dadaalkeega iyo jihaadka u baxo ama dhaawac ama dhimasha lagu tirinaya labada midunba la filay inuu la soo noqonayo laakiin abu rayxaana waxa ilaahay nabad soo celiyay isagoo nabad qaba leena mar alle markuu salaadii cishaa uu tukaday buu gurigiisii tagay haweenaydiisii oo u diyaar ayaa ku soo boodo markaasuu ku yiri in yar laba rakac tukada ii kaadi buu ka yiri tahiyatul sunnihi salaatul cishaa ka dambeysay iyo ku guryaha la tagayeen inaga maanta waxa laga yaabaa dadka muslimiintu sunnahana masjid bay ku tukadaan faraa'idana masaajidii ba ku tukanaa salaadu adoon ku tukada buu nabigu salaada ugu fadli badan waa salaada uu qofku gurigiisa ku tukanayo ilaa faradka mooyaane ma thabata an an-nabiy alayhi salatu wasalaam salaad kasta oo farada markuu nabigu ka baxo wacdi uu jeedinayay ama ummadu wax baraayay ama nasiixu ummadu u jeedinayay ama kuwa soo islaamay buu diinta baraayay ama ka quraanka la baraya buu oran jiray maxaa lagu baray ama martida masjidka timid buu nabigu la fadhiisanayay ama sunnaha waxa nabiga laga soo arooriyay inuu gurigiisa la dooran jiray salaada sunnaha caadada bay saxaabadu lahaayeen si ay guryuhuna ay barakada salaada iyo naxariista salaada ku soo dagaysa ay guryuhu nasiib ugu yeeshaan oo ilmaha yarna ugu akbar baaro hooyo iyo aaba cibaadaysanayo diin leh ayaa nabigu noogu jideeyay salaad lagu tukado salaad sunna oo la tukado salaada ugu fadli badan waa salaada qofku uu gurigiisa ku tukanaya ilaa faraa'ida mooyaane abu rayxaana salaadii buu gurigu la yimiday haweenaydiisii baa ku soo boodo markaasuu ku yiri ii kaadi han sunnaystay laba rakac uu tukaday sidoo laba rakac ugu taagnaa wuxuu maqlay muadinkii oo u dhawaaqaya salaatul fajrki hayya ala salaah hayya ala al-falah hayya ala salaah hayya ala al-falah sunnihi buu khafiifiyay masaajidkii buu tagay uu soo tukaday markaasay sugtay ku tiri ya abu rayxaan ghazawta ilaahay dartii baad u baxdo jihaad baad ku maqnayd waad soo daasho safarna waad ka timiday adoo nabad qabanay ilaahay waa noo ka soo celiyay aniguna xalay oo dhan faraashka dushiisa kugu sugaayay adiguna salaadun baad ku jirtay miyaanan xaq anigu kugu lahayn bay ku tiri markaasuu ku yiri xalay toole hal mar oo kaliya hadaad maskaxdeeda ku soo dhici lahayd xaq wad ugu yeelan lahayd buu yiri laakiin marna kuma xasuusan buu ka yiri oo maxay ka mashquuliyay wuxuu xural aynta iyo naciimta ilaahay jannada ku sifeeyay buu xalay qalbigaygu joogay buu yiri billahi alaykum imka inteena halka masaajidka soo gashay hadii la yiraahdo war 10 daqiiqo ee salaada aan imaamka gadaashiisa ku tukanaynay qalbigeenu halku ku maqnaa maanta walabada marxaladood ee la garto qalbigu masaliim ba mise waa mariid qalbigu muu buka mise uu caafimaad qaba laba marxala la garta laba marxaladood inda salaam marka salaada tukanayso kow iyo inda musiiba markay musiiba kugu dhacdo walabada marxaladood ee lagu teesteeyo qalbiga muu caafimaad qaba mise uu buka salaada marka tukanayso 10 daqiiqo 12 daqiiqad imaamka gadaashiisa aad ku tukanaysid